السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي وعنا وناكسن مركل فيديو عصب جنال كان نقل ساعتين وأمسين جنال وأمسين سود وهذا ماني وناكسن هبي وناكسن صباح وناكسن دور وناكسن كل شيء وناكسن أصحابتي وسود وهذا أصحابتي ولا جوك سكر سود وهذا دماتي بسود وهذا دماتي لو إذا تشعل هاي إن شاء الله مركل قصة كور فضل بليز أنا كنت أكتب سبسكرايب لايك شير كومنت سحب اللي بدك هذا ما صدق هاي سبسكرايب بتكون سعرين ولا جرين وشير كري دماتي مسكين دماتي لو إذا تشعل هاي إن شاء الله مركل البرنامج كان إلى التالي soo marka insha allah qayb kale nabada weliba maanta qayb kale xiiso badan bilis haddii aad haysid ila tale ama qasab ugu dhacday aad haysid waxaad noogu soo dirtaa instagramka ama facebook insha allah dad badana ku jira linka insha allah qof kasta waa u imaan doonaa yuusan dadka ilaalsanin marka insha allah noo bilaabo qisadan waxay naga soo gaartay gabar lagu magacaabo Umu Caatika waxay tiri salaamu calaykum waa idin salaamay adiga iyo dhammaanba familigaada waan ku aqaano walaashay wacalaykum assalaam waxay tiri magacaygu waa Umu Caatika waxaan ku noolahay dalka Kenya gaar ahaan waxay tiri Mombasa Raha waxay tiri waxaan ahay hooyo leh 6 caruur ah kuna dhalatay kuna soo kortay isla dalka Kenya waxaan ahay dadka Kenya ku dhashay waxaan guursaday bay tiri sanadii 2011 waxay tiri waxaa ugu dhacday markii aan guursaday markii 2017 baa waxa la soo degay reer Soomaali ah oo isku guri aan degnay Mombasa dabaq yani hal dabaq aan isla degnay soo markii waxay tiri ayadan irida xiran aan irida ay xiran laakiin dhibaatada heysat waxay tahay bay tiri maanta 12 waxay ku leedahay tiri ninkaagi baa halkaas ku soo arkay ninkaagi baa gabar la socday ninkaagi baa sanaha maanta 12 gabadhaas waxay tiri gabar iiga shakeysay ninkayga oo noloshiisa uun waxaanan ahayn aan ii sheeginba waxay tiri aniga maalin kasta waan khayliyaa ani iyo xaajigayga waan doodnaa laakiin waxaa dhacday bay tiri maalinta dambe waxay ugu dhahday bay tiri meel baan kusoo arkay waa inaad daba gashid oo ninka raacdaysatid asoonan ku arkayn in aad daba gashid hayaan dhahay bay tiri isla markii waan daba galay weliba waxaan u daba galay bay tiri meel u socday meeshii wiilal buu shir kula lahaa meel waxay cafeteria sidii aan meesha u fadhiyo waxay tiri habeenkii gabalkii baa iigu dhacay markii la gaaray 7 fiidnimo ka soo baxay bay tiri 7 fiidnimo markuu ka soo baxay wuxuu galay bay tiri guri kale oo aanan gurigeena ahayn guriga markuu galay aniga isla markii uma daba gelin bay tiri waan iska soo laabtay wuxuu ii yimid gurigeyga wuxuu yimid bay tiri saacad kadib markuu imaaday waan ku qeyliyay halkee jirta baan ku eriyay wuxuu dhahay tiri meel ma jirin cafeteria baan fadhiyay laakiin aniga waan soo arkay bay tiri meesha uu galay hadana next day waxay tiri sidii baan u daba galay tiri marka waxay tiri aniga wax shaki weyn galay tiri soo marka daba gal weyn baan waday tiri hadana next day-gii waan daba galay wili waxaan u daba galay bay tiri gurigii uu tagay gurigii baan galay bay tiri anigoo dhig la qabta lahayn baan galay tiri waxaan watay bay tiri kasha xawaashka lagu tumo ama heelka oo guriyaha taala baan qaatay bay tiri deedna iridii markii la iga furay gabadha ugu horeyso iga furtay baan ku dhuftay markii aan gabadha ku dhuftay gabadhi qayladeeda ku soo baxay isla markiiba gacanta iga qabtay maxaa kugu dhacay buu yiri gabadhii waa la waday hospital ku yaala isla xaafadda aan deganeen baa la geeyay anigiina waxaa la ii dhiibay tiri saldhigga booliska isla markii meeshii baa la igu xiray laakiin gabadhii dhaawac weyn muusan noqon 2 qodob baa la talay markiiba waa la isoo daayay waana la galay waa la isoo daayay habeenkii waxay tiri asiga waxaan dhahay bay tiri gabadha aad guri kula jirto waa naag aad jeceshahay ama aad qabtid ee runta ii sheeg laakiin wuxuu ugu yiri bay tiri aniga ma jirto cid aan qabo iyo cid aan jecelahay oon adiga ahayn waan rumaysan waayay bay tiri laakiin aakhirkii wuxuu dhahay tiri waan kuu sheegay qofku waxa ay tahay laakiin adiga ayaa ku furbaya waxay doonta ha noqoto diyaar baan u habay tiri xitaa haddii reerkii ku burburayo isla markii gacantu iga qabtay wuxuuna ii geeyay gabadh ah walaashiis ka weyn oo guriga degan gabadha aan dakhreena abtigu u yahay walaashiis ka weyn baa dhashay meesha waxay tiri fadeexa iyo ceeb baa ka dhacday reerkiisa aniga xitaa yani hor umaan aqooni bay tiri waxay ka imaaneen tiri ayaga Kenya waxay ka imaaneen tiri Kenya caasimadiisa Nairobi soo marka ismaanan arkin bay tiri walaasha ilmaheeda ismaanan aqoonin hooyadiisna xilligaas safar bay soo socotay ayadana Mombasa ku soo socotay isla markii meesha fadeexa ka dhacday isla wuxuu ugu furay tiri isla goobtii gabadhi walaashiis ah ee taagneed asigoo dheey tiri haddii gabadhan abtigu ahaad gacan u qaadisas baa iga furan tahay weliba marqaatiyaal taagan ayuu u furay
sidaan ku kala tagnay kadib gurigeygii markaan kusoo laabtay caruurteedii iyo wixii wuu iga dabiib muxuuna yiri hal cunug aad wadanaysid ma jirta ilmaha iska dhig iska bax sidii baan kusoo baxay bay tiri waxaan ku imi bay tiri Nairobi oo hooyada iyo ehelkeyga deganaayeen meeshaan joogay laakiin waxaa dhacday tiri sanadii 2019 dhamaadkiisii bilowgii 2020 waxaan ogaaday bay tiri in gabadhii waxa ay shitaareysay ay rabtay in la ifuro kaliya ay rabtay waayo ayada single mother ahayd saas daraadeed marka in la ifuro bisay rabtay wax kale ma aysan rabin aniga ma aqaan meelaan tala ka bilaabo mana aqaan waxaan sameeyo kaliya markasta oo aan dareemo culays waxaan soo xasuustaa qadar rabbi inay jirto laakiin dhibaatada iyo murugada hees waxay tahay ilmahayga oo iga xarimo oo iga mamnuuca in aan arka ama aan la kulmo gabadhii ka dambeysay in la ifuran wax kasta waxay igu tiri waxaan rabay in lagu furo oo single mother aniga camal noqotid waayo aniga gurina ma hayo reerna ma hayo saas daraadeed marka adigana waxaan kula rabay jabka aniga soo gaaro kalaan kula rabay walaashay macaan waxaan kaa rabaa adiga iyo dhammaanba Soomaali Maxamed inaad ila talisaan iina soo duceysaan in Ilaahay awlaadeeda ii soo celiyo iyo weliba xaajigeyga si aan mar dambe qaladka iga dhacin aan uga waantooban insha Allah ii soo duceeya markastoo aan dukadan waxaan ku duceystaa in Ilaahay awlaadeeda dib iigu soo celiyo dhammaan Soomaali Maxamed waxaan ka rabaa inay ii soo duceeyaan weliba duco walaaltinimo ah inay si niyo iigu soo duceeyaan baan ka rabaa insha Allah dhammaantiin mahadsantihiin walaashay horta Soomaali waxay dhahdaa mudul gubtay mudul dume yani mudul dume kama naxo naagta ayadaa single mother ahayd soo marka adina wuxuu kula rabtay single mother inaa noqotid inaa la aragtid xanuunka single mother-nimada ilmaha oo aad la nooleen kaliga aad nolosha dhibaatada ay leedahay inaa aragtid rabtay soo markaad waa qadar Allah wax yani wax dhici rab kun sano ka weeyeen soo marka ay wax kasoo Ilaahay baa qadaray laakiin talada aan ku siinaa waxay tahay naagta mataladeeda dhageysan haddii ay ku dhahdo xitaa waxaa waaya malkamoodka anta taagan ha ku imaado adoo fadhiisada ha ku imaado ka aqbalin koos iska dhibadii naagi hadii jiray waxa wasaan waa ka barbaleen badan marka malkamooda ay dugutaan dad ku dhaxayta meeshaad fadhiya istaag meeshaad ku sug faafanta amalena tan kale insha Allah Ilaahay waxaan kaaga baryaa in awlaadaada ayagu caafimaad qaba nabad qaba Ilaahay ku soo celiyo ما شاء الله أولاد قروح بدون صبر ويصير درتوا أركي إلهي أيقون نبض عافمات قبل حكوسو علي ولا شيء خالي أديقنا إن شاء الله مركز تدعيس إن إلهي أولاد حكوسو عليه أديقي حاجة يعني أديب أمدودين إن شاء الله بحرجينا الصومالوين لما نطب يكوسو عندون إن إلهي أديقي لما هديب ذي المداية تاسنا يكونوا قندون عشر لم إلابنا سو مرك إن شاء الله بحان كوجود عنا مركز أو محيطه يعني صلاة دكتور إن إلهي وكوسو دعينا إن إلهي كو أقبل إن إلهي أولادي كل مدايو إن أدينا إن شاء الله دعيسو صدقنا بحثت تسبيح لنا بس إن شاء الله إن إلهي أولادي كل مدايو إن شاء الله أنت كل أنت أصحابكم أنت وصوري قبل أسبوع الدعاء وحتى له كالوهيستين إن شاء الله إلى تلدين أنت هنا كل أنت قبل ولا شيء دعينا وقبهنا إن شاء الله هنا لو سو دعايو because dad muslim xaq isku lahaanahay insha Allah qofkii ishaay ila tali ama qisoo ku dhacday reality ku dhacday insha Allah qaybta Instagram-ka Facebook aan ugu soo diraan dhamaantiin ma sidii dhamaantiin jecel dhamaantiin ba peace and love